koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan arreer kalamaanow ma nabad qabtiin ma nabad qabtiin yalari haakiyan iyo wasda dagaraayan arbiika belbele rushayli leeyleegi doonta war mar hore aad markii Kim Jong Un uu gantaalada tijaabiyey maxaa la barooranaysan war Jubbaland deegaanadeeda mar hore dawladda ka mamnuucday war kuwa isu dhaarsan waa Iiraan iyo Mareykanka ee Soomaaliya maba ku jirtoba yaa goormaan Hirshabeelle ku biirtay Iiraan dagaaladeeda war raadigo ma iga dheega jiray maxaad u leeyaabaysin dadka waa kalamaane war yaaya xoolaha nool iyo khayraadka badda iyo khayraadka beeraha Soomaaliya wixii la dhoofi jiro lacagta adag lagu soo beddelay jiray maxaa ku dhacay oo annaga deeqdan u qasbaya ma hadda dhoofino war khayraadka iyo xoolaha sheegays maamul goboleedyada ay ku kala biireen kalamaanay anigay dhagaysta haddii aanan dhulkaygu daarahaada burburin haddii aanan dhulkaygu dadkaaga barakicin beel hubaysan kama dhalan warniyow daara burbure aan idinka kugoontiday horta ana madiina tumbuushlay bisku daganaba hoobanta lama tufka kagaha ala gorob meelkii ala muwaadin meeliyana dago lama tufka surida nabadayu allo warkiisa waa cadaystay war ninka war xun kuma sheegin 2021 markuu xilka Soomaaliya ku guuleystay wuxuu qabanay ugu sheegay shaqfir ku dooran mayno ay qoonto dumarkaada maamulay shoobarana nagala tag warna miyaa ulaan jirin hada ka hor isbitaal seedi may ba eray waan xanuunsanaya adeer dhiiga laga qaada yaleeri dhiig laga qaadi maxay awalow dhiiga igu yaraayeeri walbo si lagu daaway kaadaha laga qaado midda idilootay waa iyada yeeri waayahay adeer dhiig hal ugu shubo abaha ii sheegin dhiig islaameed lay ugu shubi ma yeeri daawadi sislisinka fadahe war arintii cakireeyda galmudug oo kala wareeg hawada gaartay oo ra'iisul wasaare Khayre iyo ahlu sunna isku afgaran waayeen xagee maraysaa warnimada war ma haysaane ra'iisul wasaare Khayre iyo gankii ahlu sunna saacadna way heshiineen saacadna way dagaalayaan xalay waxay ku heshiiyeen baa la yiri in askartii Muqdisho laga wadayay la iska dhaafo maanta waxa la isku fahmi waayo gankii ahlu sunna ay diideen in ciidamada Sooma dhuusa marabi gurceel la geeyo waraami Soomceel buura u baahane ma lagu shubo shabaab gurceel dhuusa marabi jooge war magaalooyinkii dhuusa marabi galkacayo hal wada isla qaadeen odayaashii galkacay ku sugnaa waxay dheen gogasha taala dhuusa mareeb bilaa shuruudlaan aan tagayna odayaashii cadaadana inay caroodeen hawada dhagaxan dhigeen war ma eri jiraan nimantuun gaalow markaad ciindaaqda lagu yaaba lankakano hatta dhibaatada koobsanaana sababtoo adaade dhuusa mareeb walaagi meeliroogidan baawuray raaceen hal waday wada raaceen wari ahaana saa doohan lankado u kore dad dhaba meel dadka hal baabur leeyahay hormadkeena oo godin laba marar gurma maqleen miyaa waaba ka boode aroo burtilaas yaqaana waligiin war la yaab liyo weyri xabaad ku jirtaane waxba la iska bartaayo dadku way iswarsadaaye wadar hawl ka dhaxayso qofba waax ku lahaa oo sharci loogu wadaajin waa wixii wadankeenu waqti dheer ku sugnaaye shakhsi waajib la saaro lagu dhaarshay wallaahi oo wadadii kala bayray iyo koox la walwaasho inta waardiye saartay hadba weelka daraysa waxa aydun wadaan walidoodii miya war heede waligaada ma lagu dhahay inta gurigaada hortiisa dhagax la dhigtay qof waa ku daminta Allahumma najina wa min dhanodhineed ee ilaaha wana tusi war islaanta aakhirami ku noosha meesha xamar joogi muwaysan maqal kontaroolka isgoyska number 4 la dhigay wareeda meesha dadka qaraxida dhigaa lagu qabtay kiiloomitir farmaana waa boosaaso dadka ka daabeenta war boosaaso warka ma haysida askari lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilkii madaxii DB Wall ayay maxkamad dil toogasho ku xukuntay maanta war xukun beela maxkamada Puntland waxba kama ogide sanad walba dilay xukuman illa toogtana ma aragnay dadka hageeyeen war dadka adduunyo u taaglaanahay aakhiraadka noowin arooda gudoomiyaha golaha shacabka meesha u baxay baydhabo ma ah ee waa Garowe wuxuuna ka qayb galayaa la yiri aas-aaskii sanad guuridii 1
labaatanaad oo puntland warnimantuhu mayka dheegi jiray hibil geed sarawaab weeye geed sarawaab weeye maylan lijeede misarmadii mooradii ooda mooralaaye oolase sanad guruubtaas maynje intamag walaayayaal argu haytana nimiyow madkera magxulunaysa waan aqaanaaye abuu mansuur waa la soo daynayaa iska sug maandhayskow wasiir Omar kismaayo ma tegayo ma lagu soo dhaweeyey mase hawado wili ku jira ayaya hawada mashquula diyaaradihii feel ay ku jiraan taraafikadina qaday ku maqan tahay wareere war ma ogdiine cali ceelwaaq shabaab baa soo weeraray dagaal ba'an ayaana ku dhex maray ayaga iyo ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa Kenya hadda dibaa loo eriyo meelihii ay ka yimaadeen bay ku laabteen war ceelwaaq warkama sida gudoomiye ceelwaaq hadlay wuxuuna yiri tuulooyinka magaaladayda hoos yimaadoo dhan al-shabaab soo buux dhaafiyay war gudoomiye yiriisoo caafimaadkiisa maxaa war oo ka haysan war maxaad u daawan islaamka Khadiija Maxamed Diiri oo gudoomiyaha gobolka dhaawaciisa la joogto waxayna sheegtay inuu caafimaadkiisa ka soo reynayo ciyaalkiisina ay la joogaan marka xogta gudoomiyaha hadaad rabto live-kaas nabadii noola daawo intii bogta allaha bogsiiyo gudoomiyahana asoo nabada allaha noo soo celiyo eeda aamiin laakiin adamay bagaalay inoo malaamilayda ka jarti booli aadmiga daaqa ama beenta bannaysta bahda maanka garaadkaa bugta looga ridaaye ilaahay aan ka baqno war waxaa la yidhi lamaano kasta oo gurigooda ku yaraado Facebook ayay gogol ka samaystaan oo sawirro iyo hadallo macaan isu mariyaan war hana sirin lamaano kuma haysana Facebook dhafar oo nugu dilay war Twitter-ka la message qor message war waxaad sheegaysaa waa qaaluu innaa lilaahi ilaahu kuwaan qabooji